habaryaro nooceeya ayaa jira sanadkan waa yaabanahay runtii habaryaro soo la oran jiro waa irxin laakiin sanadkan waxay noqdeen habaryaro oo ma aragtay dadka cunayo markaas awgeeda waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii Layla la socod wanaagsan waydin salaamay asxaabta qaaliga ah baryahan waan kala baadnay walaashiina mulki waxa weeye waa yara xanuunsanayay runtii oo waxa weeye hargab xun ayaa igu dhacay maanta ayaan jeclaystay inaan ma aragtay aan ka hadlo arin xasaasiyo social media dhinac kasta dhex ordayso Allahumma salli ala Muhammad horta aan ku salino nabigeena marka hore maadaama aan nahay dad muslina marka labaad aan waxaan nigu salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh horta arinta Layla qof walba oo ku jira social media iyo Soomaali weyn meel walba adduunka ay joogtaba way wada arkeen oo uma baahna maanta inaan ka hadlo laakiin arinta aan rabo inaan ku darsado waxa weeye kaliya waa waxay noqotay arin horta runtii aan naxdin igu noqotay oo lama filaan igu noqotay sababtoo ah waxaan u arkaa habaryaro marka la leeyahay habaryartu waa hooyo oo aan naas lahayn habaryar waxa weeye waa hooyo oo kale laakiin maadaama oo aan ku jirno waqti aad u xun maadaama aan ku jirno iska aqoonsaman oo kale maalin walba dhagahaaga waxay qabanayaan wax ka nixiya dhagahaagana waxay maqlayaan wax ka nixiya marka marnaba isma aan oran waxyaalo kale way dhacaan adduunka laakiin habaryar ayaa saa u galaysa gabar yar ay habaryar u tahay waxa weeye waa eco runtii inkastoo sheekooyin aan maqlay laakiin ma aanan rumaysnayn oo qarsoodi igu soo gaadhay laakiin waxa yaab leh runtii arintan oo hadda yani gabadhan Layla ee shaaca ka qaatay horta meesha qabiil ma taagno oo sheekadan yaa loo dadin yaana la iskugu riixin qabiilkan weeyaan iyo qabiilkan isaga laangaab ah oo kuma fiicna in la difaaco qabiilkan waxa weeye laandheere waxa weeye lacag ay bixinayaan oo waxa weeye waa in la difaaco ma wanaagsan runtii qof walba waxa wanaagsan suu Ilaahay ku og yahay inuu wixii jira uu ma aragta ka qayb qaato gabadha miskiinta ah la caawiyo waxa weeye la garab istaago gabar dhowr iyo 20 sano xabs lagu haayay oo yani qof walba naga mida maanta waxa weeye ma jecla in xoriyadiisa laga qaado ma jecla in la jujuubo ma jecla in wax uu isaga yani raali ka ahayn in lagu qasbo gabadhan waxay ahayd la hayste gabadhan waa laga wada dharagsan sheekadeeda qof walba oo ma aragtay oo Soomaaliya qof walba oo muslina waxa weeye way taabatay sheekadan waana arin aad iyo aad u naxdin badan runtii gabar yar oo maskiina oo nolol maanta u baahneed inay hesho oo wadan opportunity ah ku dhalatay oo intaas ku soo ma aragtay wax ku soo baratay maanta iyadoo 3 jir inta laga soo wado in magafe afka loo geliyo magafa soo waday magafa kalena afka u geliyay waa ka qaba marka runtii waa arin aad iyo aad looga naxo Soomaaliya dulmigii aad noogu batay runtii waxa la leeyahay muxuu xanuunadii kansarka u soo bateen maxay ma aragtay maalin walba wax naga nixiya aan u arkaynaa maxaa la yiraahdaa ilmaheeni ay badadka ugu dhamaanayaan maxay caruurteeni xabsiyada ay ugu wada jiraan maxay isla wada tooganayaan maxaan u fahmi la'nahay ilmaheeni ay wada gangster u wada noqdeen waxa weeye waxaad fashid ayaa ku hoos imaanaya waxaad samaysid adduunka aad ku falatid waxa la beer hadaad falatid beerta si fiican u abuuratid miro wanaagsan ayaad ka helaysaa oo si fiican ay kugu baxdo laakiin beer oo si yani oo qaab daran aad u samaysay oo aad tiri qasab aan u beero waxyaalo chemical iyo adduunyooyin wax si oo dhaqso ay u weynaato ma aragtay aad ku shubtay wax weeye waxa ka soo baxayo yani beer xun marka waxaan ka wadaa wax walba aad fashid waad helaysaa mirihiisa marka hadda Soomaali maadaama
dulmiga uu nagu badan yahay maadaama laisku naxee maadaama xasidkii uu nagu soo batay ayaa waxa keenayso in uu ma aragtay aan ka aragno ilmaheenii aan ka aragno guryaheenii dhibaatooyinkii aan ka aragno qabiiladeenii aan ka aragno dadkii dad noogu dhowaa habaryarihii irxinkii markaa waa dulmigana waxa weeye aad buu u xun yahay runtii aad iyo aad si kasta u tuko si kasta ilaahay iskugu xir si kasta waxaad tiraahdaa waxa weeye waxaan ka fogaanayaa dhibaato kasta laakiin dulmiyaan ku jiraa qofaan dulminayaa waxaaga dhan waa yani waxa weeye ciidda waa wax lagu shubay markaa Soomaaliyeed dulmiga wax meeshan ka istaagi laanahay gabar la kufsado inta gabar uunba ooynayso mujtamacan dhan wuxuu la dhismi laayahay waa gabar ilmadeeda uunbaan arkaynaa inta sano ani wax ka wada social media waxaan ku jiraa almost 6 years 7 years ma ogi aaladaha kale ayaan isticmaali jiray sida TikTok iyo ma aragtay Snapchat-ka iyo waxyaalahaas Instagram-ka YouTube-ka muddo yar hadda 4 sano ayaan ku soo biiray laakiin muhiimka waxaan ka wadaa yani muddo dheer ayaan ku jiraa social media intaas waxaan arkaa wax iga naxinayo runtii mucjiso weeyaan wallaahi ummadahaas kale waxaad arkaysaa yani waxyaalo farxad leh ay kula wadaagayaan waa dhafiya naadir yani inaad mujtamacayaasha kale oo ummadaha kale aad ka dhex aragtid sida inaka wixiina dhan uu yahay drama يعني social media hadday noqoto TikTok iyo hadday noqoto YouTube iyo meel walbaba Snapchat iyo Telegram wax uun kaan xiyo gabar uun la xoogayo gabar uun la soo qarxinayo gabar uun ma aragto ooynayso gabar uun ma aragtay la dhibaateynayo gabar uun la abuseyo gabar ilmaheeda laga qaadanayo gabar ninkii ma aragtay ilmihii uga dhiibayo gaalo waa ummad waxaan ka yaabay Soomaalida waa ummad dramatic ah runtii waa ummad aan jecleen inay yani wanaag ay ku wada noolaadaan waa ummad uun iswada xaasidayso waa ummad uun iswada dhibaateynayso runtii ani runtii waxa weeye dadkayga aad baan u jeclahay Soomaali waxa meeshaan u fadhiyaan waxa weeye waa gubaabin iyo ma aragtay aan wacyi geliyo laakiin waxa weeye waa niyad jabaysaa runtii Soomaaliyeed markaad aragti maalin walba wax ka nixiyo oo yaawa waa ummadaadii waa la jaan qaadi kari laanahay ummadaha kale sababtoo ah waxaad arkaysaa ummadaha kale waxaan uga duwanahay nin Soomaali haduu noqdo wadaad iyo haduu noqdo maxalliya nin caadiya iyo haduu noqdo mutacallim iyo haduu noqdo nin oo madax ah oo dawladda ku jiro oo haduu noqdo yani noocu doonaba ha noqdo waxa weeye wuxuu xaqirayaa waa gabar waa qof dumar ah waa inta ugu yara ayaa inay tusaya runtii waxa weeye waa dulmi oo lagu haayo waxaan heerkana gaarsiiyay bal u fiirsada Soomaaliyeed waa dulmiga lagu haayo dumarka marka waxa weeye ilaahay mar walba wallahi salaad aan tukado ilaahay waxaan iraahdaa masaaibtan oo ummadayda la dhex dhigay ilaahay ma aragtay yani waxaan u jeedaa hir socdee ilaahay ma aragtay naga hay ayaan ku duceystaa ilaahay naga hay waayo maanta waxa weeye musiibo weyn ayaa ka taagan mujtamaca Soomaaliyeed society-ga Soomaaliyeed wuu burburay runtii wuu burburay taasna waa cuqubo nooga timid dumarka laakiin lama fahansano runtii marka arintan oo Leyla aan waxaan jeclaan lahaa ummadda oo dhan inay u wada kacdo oo ma aragto dulmiga la iska dhaafo hadda waxaan u jeedaa arrimaheeda dhan waxa la rabaa in la daboolo lacaga la bixinaya meesha waxa weeye musuqmaasuq baa ka socdo arrimii waxyaalo badan ayaa soo ifbaxayo marka kulli qof walba oo maanta i daawanayo wuu socda arinta oo Leyla kama daboolna laakiin waxa weeye waxa aan jeclahay sidoo Ilaahay kuugu ogyahay oo xaqa ma aragtay inaad uga hadashid arinteeda hadaad gacan qaban kartid dhinac dhaqaale oo miskiintaas 22 sano la soo abusay oo nolosha lagu soo ciqaabay hadaad ku caawin kartid anigaas aan iska bilaabay hadaad ku caawin kartid inaad ku caawisid hadaad af iyo aqli iyo aqoon aad ku caawin kartid inaad ku caawisid hadaad xoog iyo ma aragtay karti aad ku caawin kartid inaad garab istaagtid waxa weeye ilaahayna marka adigana waayo
dhinac iyo qabri ayaa ishaayo waa la wada dhimanaya adduunka laguma noolaanayo quruxdan iyo waxaan aad u jeediin iyo nolosha inta dhalaalkan waxa weeye way dhammaanaysaa waqti bay leedahay maalinta qabriga lagu dhigo xisaabtan ayaa bilaabmayo xisaabtankaasoo ah maxaa adduunka aad soo fashay maxaa adduunka aad ma aragtay wanaag soo samaysay maxaad xumaan soo samaysay imise qofaa soo dulmisay waa lagu imtixaan yani waxa weeye waa lagu hor keeni wax walba aad soo fashay way ku hor imaani marka ilaahay ha laga boqo Soomaaliyeed ummadayda aan jeclahay dadkayga aan jeclahay runtii waxa weeye yani waxa weeye nolol wanaagsanna waa rabtiin iftiinna waa rabtiin waxa weeye yani ilmo wanaagsan waa rabtiin nolosha hore idin jirtaa waxa weeye laakiin xaqa ha iska indho daboolina please and please xaqa waa wax weyn wallaahi qof dulman inaad ka lacag 2 shilin ayaan qaadanaya waxba igama galin haday dulman tahay hadii kale mise haduu dulman yahay hadii kale waxa weeye gurigaaga hoostaala wallaahi adi maanta dad ka badbaadid aakhirad ku arki laakiin kuwa ka dambeeya walaalahaaga irxinkaaga yani ilmahaaga ayaa laga wada jaraya oo waxa weeye oo dhibaato oo la kulmayo marka gabadhan hal la garab istaago Soomaaliya please and please wallahi arintan aad bay ii taabatay oo Leila waa arin waxa weeye indhaha laga daboolan kareen waa arin oo u baahan ma aragtay in gabadhan lacag dhaqaale iyo ma aragtay maskax iyo aqoonba loo garab istaago kuwana waxa weeye waa kuwa haday adduunka looga jiro way habaryaashan oo magaca habaryaraha wato oo aan habaryaraha ahayn oo xuushta ah hadii adduunka looga jiro way aakhiro ayaa looga jaraya sheeka jirta soo xasuustay baryahan dambe horta waxaan aragnay kii oo dhaqaale ahaa iyo kii nolol ahayd liskuma ogolo maanta hadii dhaqaale aad leedahay arinta la ahaan waxaan ku siinayaa yani dadka dhaqaalaha ilaahay siiyo xoolaha siiyay ilmahaaga haday ku nool yihiin waxba ha isku dhajin xoolahan waxa weeye wali Afrika yaala waxa wanaagsan in ilmahaaga warqadaha iyo dokumentiyaasha wax walba inaad la socodsiisid adoo nool inaad u kala qaybisid sababtoo ah maanta dadka Afrika jooga waxay noqdeen bahalo sheeka dhacday oo aan soo xasuustay arinta Leila isoo xasuusay waxa la yiri islaan iyo oday oo sheekada Hargeysa ka dhacday waqooyi islaan iyo oday ayaa jiray oo waxa weeye hanti iska lahaayeen waxay deganaayeen waqooyi Hargeysa deganaayeen qabiilada hawiyaha ayay ahaayeen saan jeclahay sidii ugu soo gaadhay laakiin Allahu yaclam Allahumma salli ala Muhammad kadibna waxaa maqlay hal inan bay lahaayeen inanka muusan jeclayn inuu Afrika yimaado wuxuu ku koray say wallahi oo ahaa wuxuu ku koray wadamadan oo Yurub ilaahay amarkiisa habartii islaantii muddo iskaga noolaayeen hal yiraahdo Hargeysa weligiisna muu imaan iyaga bisa u badinaya inay imaan jireen wadamadan laakiin inanka waxa weeye danihiisa noloshiisu iska raacday maalmaha kamid ah waxa weeye toodoodiya u timid way dhinteen kadib dhaxal xoog leh ayay lahaayeen qolada يعني أباها يهويدا مركا يا حالك أصلا فريسانيو يا قادنيو المي ليهين طبعا مركا لغا سارو ولا لها إيه دادك كالو أدو أو إرحينكا وإنان بيليه إنان كاسا مركا مسؤول كان نقونيو حوله واحد عضي إنان كي أيا سيد ودقصاه بدنين أيو وطاقي هرقيسا سحولها هويديسا إيو أبيسا ولا سوريكتو دادكو وهوري ولا كل مايو waxay ahaayeen reabtiyaaladii marka waxa maqlay hadii sheekada aan inii soo kala dhaafay aabaha iyo yani hooyada laba qabiil ay kala ahaayeen marka ama isaaq ahayd hooyada aabahana hawiye uu ahaa saasan ku maqlayaan jeclahay saasay marka u deganayeen Hargeysa Allahumma salli ala Muhammad sheekada iyadoo saa ah inanka Hargeysa yimid abtiyaaladiisu la kulmay
oo hooyadiisa ma aragtay dadkii ka soo jeeday waxaa lagu yiri soo dhawaaw inankii madaxiya la saartay waxaa la inanteeni inankay dhashay ku soo dhawaaw baa yiri bal munaafiqnimada meesha laga gaaray inankii si fiican loo soo dhaweeyay laakiin waa la mashimay inankii muddo yar isagoo jooga waxa weeye waa la dilay masuul baa loo qasay ma meel baa laga soo tuuray ma si kalaa loo dilay si casriyeysan ilmuhiim ayaa loo dilay wiilkii markii la isweydiiyay yaa dilay oo la iswada oysiye la yiri waxa weeye inankeeni waxa weeye wuu dhintay yaa xoolihii qaatay oo faraha ma aragtay loo geliyay reabtiyaaladii saas markaa sheekadii ugu dhamaatay yarkii iyo ma aragtay noloshiisa meeshaas ku xirantay xoolihiina waxa weeye reabtiyaaladii qaatay marka maanta waqtigan aan ku jirno waa waqti aad iyo aad u xun oo dad kuugu dhow ayaa cadow ah iyaga ku sixirayo iyaga xoolahaaga ma aragtay rabo waxa caruurtaada aad u dhigtay yani waxa weeye intaad nooshahay haddaadan kala qaybin oo ilmaha ma aragtay aadan kala siin aadan ku ogaan meel waxa weeye aad tirahdee ani waxa weeye walaalahayga iyo yani dadkayga ayaa ma aragtay hadhow u kala maamulayo waxaa sheekada wax soconaya malaha maanta waqtigan aan joogno wax layaa irxin ma jiro marka ilaahay hadduu ku siiyay xoolo waxa wanaagsan ilmahaaga intaad nooshahay u kala qaybi marka laakiin waxa weeye Soomaaliyay waa inaad ogaatiin in su'aal ay jirto la wada dhimanayo maskaxdiina aad ku haysiin waaba u jeedaa ummadii inay noqotay le adduun uun baa loo shaqaysanay aakhiro dhawaa la iloobay marka hadalka inuu badin ma aragtay aan sii taraarixin marka ilaahay gabadha qalbigeeda ha u qaboojiyo dhibaatadii lagu hayay 22 sanana ilaahay waxaan uga rajeynaynaa wax ka qeyr qaba oo ka qeyr badan ilaahay inuu siiyo kuwaasna ilaahay ma aragtay maalinta cadaaladda la wada hortaagan yahay liswada imtixaamayo liswada ma aragtay su'aalayo ilaahay in ma aragtay naarta uu ku fogeeyo runtii sheekadan Leyla aad ii damaqday runtii qof walba oo Soomaaliya qof walba hooyo ahnana I know inay damaqday markaas awgeeda maxaa la yiraahdaa waxa hadalkay ku soo gunaanudaya Soomaaliya isku badnaada maanta ma jiro wax la irxin zamankan aan ku jirno way dhamaatay irxin runtii sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh